Ayeeyada qoyska labaad ee ugu ballaaran dunida. Maxaad ka taqaan Mary Marshall? Ma ogtahay inay ka soo farcameen 6 jiil? Mase la socotaa inay ayeeyo u tahay 9 carruur ah? Maxayse tahay sababta looga mamnuucay bixinta hadiyadaha? Si aad wax badan uga ogaato qisada haweeneydan, like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan. Siina faafi muuqaalkan. Mahadsanid. Mary Marshall, guri dambaysta qoys reer Scotland ah. Waa gabar nasiib badan oo 1935 ku dhalatay magaalada Edinburgh. Cidna kama aysan filayn inay noqon karto haweeney ay ka soo farcamaan qoys sidan oo kale u ballaaran. Goortii ay dhamaysay kuleejka, waqti badan gashaantinimadeedii kumaysan qaadan. Xiriirkii koobaad ee jacaylkeeda ayaa guuleystay, waxayna ku guursatay 20 sano iyadoo dhashay 8 carruur ah. Gabadha ay ayeeyada lixaad u tahay ee Niall Ferguson oo 3 toddobaad jirta ayaa haweeneydan howlgabka ka dhigaysa ayeeyada 9 carruur ah oo ka kala tirsan 6 jiil oo is dhalay, kuwaas oo noqday la yaab kale oo caalamka lagu kor arkay sanadka 2021. Dhammaan hooyooyinka qoyskani waxa ay ku dhalmo bilaabeen ka hor 18 marka laga reebo Mary Marshall oo ku curatay 20 sano, waana sababta ay uga duwanaadeen bulshooyinka kale ee caalamka. Rose Dorban waa gabadha ugu weyn 8 carruur ah oo ay dhashay Mary Marshall. Waxay iyaduna sii dhashay Cyril Botwick oo 50 jir ah oo 3 carruur ah dhashay. Cyril oo ay ayeeyo koobaad u tahay Mary, waxa ay 1986 dhashay Sri Du oo ah hooyada 4 carruur ah. Sidoo kale Sri oo hadda 35 jir ah, waxa ay dhashay 4 carruur ah oo ay ku jirto hooyada cusub ee Tony Light oo imika 17 sano jir ah. 25 May 2021, Mary waxay noqotay qofka kaliya ee ku nool Scotland oo 6 jiil ayeeyo u ah oo carruurteedu ay dunida wada joogaan. Arrintaas oo timi kadib dhalashadii Niall Ferguson, xajmiga qoyskan 6 jiil ka kooban awgii. Marwo Mary Marshall waxaa laga dhaafay inay hadiyadaha dhalashada ama kuwa ciidaha masiixiga ay u iibiso carruurta ay ayeeyada u tahay, maadaama ay imika faraha ka bateen. Qoyskan ayaa noqonaya jiilka labaad ee ugu faraca badan caalamka marka loo eego jiilka dunida ugu faraca badan oo ah hal qoys, kuwaasi oo ka kooban 8 jiil, sida lagu xusay barnaamijka Guinness World Record.